Dalalka Islaamka ah, ururka ay ku midaysan yihiin ee loo soo gaabiyo OIC ayaa iskugu yeedhay shir degdeg ah oo ka dhacay magaalada Jidda ee Sacuudi Carabiya 2 Luulyo 2023. Ururka ayaa ku baaqaya in la qaado tallaabooyin wadajir ah oo ka dhan ah gubidda soo laalaabata iyo sidoo kale faldambiyeedyada kale ee la xiriira gubitaanka kitaabka Quraanka Kariimka ah oo tii ugu dambeysay ay ka dhacday toddobaadkii hore waddanka Sweden. Ururka ayaa isagu soo saaray qodobo loo tixraacay isla marhaantaana waxay doonayaan in dunida Islaamku ay isku raacdo qaramada midoobay in halkaasi laga soo saaro qaanuun caalami ah oo lagu mamnuucayo gubitaanka kitaabka Quraanka Kariimka ah. Waana sida saxda ah iyo sharciga la rabo in la rabo maadaama aysan waxba taraynin inaad TV-ga ka qaylisid iyo inaad warbaahinta ka qaylisid iyo inaad wax burburisid oo aad mudaharaadid. Maaha wax tallaabo ah oo aad qaaday oo aad kaga jawaabayso ficilada ay qaadayaan kuwa kitaabka Quraanka Kariimka iyo Islaamofobiyadu madaxa martay inay waxyeelayaan Islaamka. Run ahaantii Ra'iisul Wasaarihii hore ee waddanka Pakistan Imran Khan ayaa isagu horay 2019 waxa uu qaramada midoobay horgeeyay in la saxeexo isla marhaantaana loo codeeyo qaanuun caalami ah oo mamnuucaya in la gubo kitaabka Quraanka Kariimka amba lagu xadgudbo diimaha si guud isagoo taas uga jawaabaya faldambiyeedyada soo laalaabta ee ka dhanka Islaamka si qaanuun loogu helo isla marhaantaana sharciga caalamiga ah ee halkaasi yaala qaramada midoobay loogu cuskado. Waxa inta badan dunida Islaamka dhagaheena ku soo laalaabta qaanuun caalami ah, bal waxaynu eegi doonaa sida Islaamku u baaskareynayaan qaanuunka caalamiga ah ee looga soo horjeedo gubitaanka kitaabka Quraanka Kariimka ah iyo Islaamofobiyada. Run ahaantii waxay qaadeen Islaamku tallaabadii loo baahnaa ee ahaa sharciga, taas oo ka jawaabi doonta isla marhaantaana wax ka qaban doonta in ay wadamada maafiyada ah sii caadaystaan gubitaanka kitaabka Quraanka Kariimka ah iyo ku xadgudbidda diinta Islaamka. Run ahaantii waa arrin aad looga farxo in shirka waddanka Sacuudiga ka dhacay ee magaalada Jidda ay ka soo baxaan qodobo noocan oo kala ah. Ra'iisul Wasaarihii hore ee waddanka Pakistan Imran Khan ayaa tallaabo muhiim ah hore u qaaday isagoo taageero badan haysan isagoo 2019 qaramada midoobay horgeeyay in markaasi la saxeexo sharciga caalamiga ah ee looga hortagayo xadgudubka Islaamofobiyada ka dhanka Islaamka. balse waxaa muuqata in Islaamku haatan wax fahmeen oo ay tallaabadii Imran Khan uu hore u jeexay ay qaadi doonaan isla marhaantaana dowladaha Islaamka ee xubinta ka ah qaramada midoobay kuwaas oo kor u dhaafaya ilaa iyo 50 dowladood waxay awood u leeyihiin inay sharcigan iyagoon u baahnayn caalam kale in ay iyagu saxeexaan oo ay u codeeyaan. Taas ayaana ka jawaabaysa inuu sidaas sharcigaasi dhaqangal ku yahay oo uu yahay sharci caalami ah oo mamnuucaya waxa la codsaday ee la saxeexay. Run ahaantii waa arrin aad looga farxo oo bogaadin mudan in tallaabo noocan oo kala Islaamku qaadaan. Waxaan ognahay inay wadamo fara badan oo reer galbeed caadaysteen gubitaanka kitaabka Quraanka Kariimka ah, arrintaas oo soo laalaabatay in muddo ah, waxaana ay soo bilaabantay wixii ka dambeeyay 2001 amba xilligii daarii dhaadheeraa ee waddanka Mareykanka lagu duulay ee la burburiyay. Waxaynu eegaynaa madax kale oo iyagu reer galbeed amba aan muslimiin ahayn kuwaas oo iyagu difaacay diinta Islaamka. aynu ku bilownay madaxweyne Barack Obama ee madaxweynihii hore ee waddanka Mareykanka ayaa waxa la sheegaa inuu aad u taageeray Islaamka gaar ahaan muslimiinta ku nool waddanka Mareykanka. Madaxweyne Barack Obama waxa la sheegay sidoo kale in uu waddanka Mareykanka ugu baaqay in la soo dhaweysto Islaamka isla marhaantaana laga dagaalamo amba laga hortago Islaam nacaybka. waxa isaguna sidaas la mid ah Vladimir Putin madaxweynaha dalka Ruushka. Vladimir Putin ayaa ka mid ah madaxda aan muslimiinta ahayn ee sida weyn uga soo horjeestay ama sida weyn u difaacay muslimiinta. waxa uu si weyn uga horjeestay aflagaadada lagu sameeyay Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee iyo xadgudubyada kale ee ka dhanka Islaamka. Madaxweyne Putin oo khudbad jeediyay bishii December ee soo dhaafnay ee sanadkii hore ayaa Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee aflagaadiisa ku tilmaamay mid aan shacdarra ah oo ka hor imaanaysa xorriyadul qowlka. Justin Trudeau ayaa isaguna ka mid ah madaxda reer galbeedka ee sida weyn u soo dhaweeyay Islaamka isagoo sheegay inaan la aqbali karin. waxa uu sheegay amba waa mid ka mid ah dadka sida weyn Islaamka u taageera ee madaxda reer galbeedka. Mr. Trudeau ayaa 2020 sheegay in Islaamka ama Islaam nacaybka uu yahay wax aan la aqbali karin isagoo soo dhaweeyay Islaamka isla marhaantaana sheegay in waddankaasi Canada ay tahay meel Islaamku ku nabadgeli karaan. isku soo wada duuba wax walba waxay muujinayaan in Islaamku uu midoobo inay la micno tahay in laga guuleystay kuwa iyagu caadaystay
xadgudubka iyo anshax darrada ka dhanka ah Islaamka, waxaana la filayaa in la horgeeyo qaramada midoobay sharci cusub kaas oo dhigaya ama markaasi xeerka caalamiga ah waxa uu noqonayaa qawaaniin ay tixgeliyaan gebi ahaanba dunida maadaama ay wadamada Islaamku baawar badan ku leeyihiin marka ay midaysan yihiin golaha ammaanka ama qaramada midoobay dhexdeeda. waa xaqiiq in Islaamka wax laga dhageysan doono marka ay timaado golaha ammaanka ee qaramada midoobay.